mas-uuliyiinta dowladda hoose ee degmada Burco ayaa gudaha magaalada Burco axadda 24 February 2019 ka bilaabay dayactirka qaar ka mid ah wadooyinka burbursan kuwaas oo dhib badan ku haya bulshada iyo gaadiidka waqtiyada xilli roobaadka. Hawlgalladan dayactirka wadooyinka ayaa waxa goobjoog ahaa maayirka magaalada Burco Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Muraad iyo xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Burco iyo sidoo kale xogayaha fulinta dowladda hoose ee degmada Burco. maayirka magaalada Burco Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Muraad oo ugu horeyn ba halkaasi ka hadlay ayaa sharaxay ujeedada ay dayactirka ugu sameynayaan wadooyinkaasi, waxaana uu sheegay maayirku in wadooyinka qaar ka mid ah ay dhib badan ku qabeen bulshada iyo gaadiidkuba waqtiga lagu guda jiro xilli roobaadka. saaka waxaan bilownay wadada la yiraahdo isku dhagax dheer ee isku xidha waqti hore ama meesha loo yaqaanay Sakatal Yuhuud ilaa iyo kaalinta Calba. wadadaas waxay wadooyinkii hore hore loo sameeyay waqti hore oo burburay oo sideedaba intii badan 180 meesha ka baxay oo shicibkuna ay dhibaato badan ku qabeen iyo baabuurta siiba waqtiyada maxaan sheegaa roobka. marka maanta waxaan garanay inaan wado cusub ka dul sameeyno. dhinaca kale xogayaha fulinta dowladda hoose ee degmada Burco Ismaan Maxamed Sheekh Ismaan Nuur ayaa isaguna dhankiisa bulshada ugu baaqay inay ilaaliyaan wadooyinka, waxaana uu sheegay inay tallaabo ka qaadi doonaan cidii lagu qabto iyagoo waxyeelaysa wadooyinka. run ahaantii wadadani meesha way ka baxday, waxaanay ku taalaa faras magaalada Burco. marka runtii haad iska dhanbaanu saaray wada iska cusubun bay noqotay maanta hawsheedii aan ku galay in ay ka daayaan laamiga waxa dhaawacaya oo dhibaato u geysanaya waa biyaha lagu shubayo iyo xalka iyo waxa la mid ah. xildhibaan Khadar oo ka mid ah golaha deegaanka ee degmada Burco ayaa bulshada uga mahad celiyay sida ay ula garab taagan yihiin wax kasta oo lagu horumarinayo degmada Burco. waa shaqada noo wadbateen ma aha shaqo kale shilikaan idinka qaadmaan galeeyna waana waxa noo midowayaan. ugu dambeyntii mid ka mid ah dadweynaha Burco halkaasi ka hadlaya maamulka dowladda hoose ee degmada Burco ku amaanay dadaalada ay wadaan ee ay doonayaan inay ku horumariyaan magaalada, waxaana uu dhinaciisa ballan qaaday inay garab taagan yihiin. waxaanu soo dhaweynaynaa waxqabadka cusub ee dardarta cusub ay ku qaadeen dowladda hoose. cid kasta oo wax qabata iyo gobol kasta oo wax lagu qabto waa barbar taaganahay. Cabdilaahi Maxamuud Muuse Xudayfi, codka Bariga Afrika, Burco.